ayaa maanta kulankoodii 31aad oo qayb ka kalfadhiga labaad ee golaha shacabka ku yeeshay magaalada Muqdisho. xubnaha golaha shacabka maanta waxaa hortagay wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele. wasiir Beele ayaa ugu horreyn soo bandhigay qoondada miisaaniyadda 2018 ee dawladda Soomaaliya, waxaana uu sheegay in dakhliga soo gala xilligan uu kordhay marka loo eego sanadihii hore. waxa uu xusay inay muhiim tahay in golaha shacabka ay meel mariyaan miisaaniyadda 2018 oo maanta akhrinta koowaad maray. miisaaniyadda dawladda Soomaaliya ayaa sanadkan waxa ku ziyaaday lacag dhan 14,458,464 dollar, taasoo ka dhigaysa miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2018 $224,630,191 dollar, halka sanadkii hore ay ahayd $260,171,727 dollar. 2017 ayaa koror yimi dakhliga gudaha ka soo baxa. arrinta labaad, dakhliga gudaha ka soo baxayo iyo kabida waxaa marka la isku daro waxay ka bargareynayaan ama ay daboolayaan 777 dakhligeena gudaha ka soo baxa. macnuhu waxa weeye markaan eegno kharashka joogtada ah ee loo baahan yahay in lagu rangareeyo waddankan 23 ayaa weli naga dhiman. 23kaasi haddaan intaa koo kacna sanadkan waxay noqon doontaa inay suuro gasho kharashka joogtada ah ee lagu baxa markaan kharashka lagu talaga horumarka halkan iska dhigno ka joogtada ama mushaharaadka ama hawlgallada lagu hawlgelayo inaan dabooli karno ayaa laga yaabaa. waana ku soconnaa haddaan ku soconno aan ku sii soconno. gabagabadii kulanka xubnaha golaha shacabka ayaa isku raacay in saxaafadda dibadda looga saaro kulankooda xilli ay guda galayeen kulan gaar ah kaasoo aan la ogeyn waxyaabaha ay diiradda ku saareen. 14 bishan ayay ahayd markii golaha wasiirada Soomaaliya cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen miisaaniyadda dawladda ee 2018 taasoo maanta si rasmi ah loo horgeeyay xubnaha golaha shacabka. kulankii maanta waxaa soo xaadiray 151 xildhibaan. kulanka waxaa shir gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan Mahad Cabdulla